kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeenan oo aanu ugu magacawnay hal adeeg waa barnaamijkii ugu horeysay ee TV-ga qaranka ka baxa tan iyo intii aanu ku talaabsaday TV-ga qaranka iyo wasaaradda in ay si dimuqraadi ah dhammaan afkaarta ashqaasta siyaasiga dhaqanka dhaqaalaha arrimaha bulshada intaba si loo sameeyay in ay iyagu ay soo bandhigaan taasi oo aanu isagana ku amaanayno Faysal Cali Waraabe ila uu yahay siyaasigii ugu horeeyay ee aqbalay ee ashruuda nagu xiran ee waqtigii uu noo qabtayna isagu nagula caadi nagu qaaday waagaa Faysal aad iyo aad baan kaaga mahadinaynaa waxaan jecelahay bal maanta inaan ku weydiino bal waxaad nooga warantaa guud ahaan xaaladda guud ee bariga Afrika way waxa tiin adoo metropolitan baatay maaha nin bal hada nooga waran xaaladda guud ee bariga Afrika maanta intii la gudday bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil aalamiin wasalaatu ala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam horta marka ilaahay mahad naqo subhanahu wa ta'ala ilaahay ama mahad naqo ilaahay nabadayna si rahmaadkan inagu daray ilaahay mahad naqo horta waxa weeye geeska Afrika oo dhan ma haysta adduunka oo dhan maanta waa isbedel weyn baa ku socda oo doorashada la doortay Trump iyo dagaalka ka socda Ukraine labadaas saameyn weyn bay adduunka yeelatay inagana geeska saameyn bay nagu yeelanaysaa waxay naga intaa inoo dheer maalintii aynu madaxweynaha Soomaaliland Muuse oo MAU saxay waxa kacay adawgeena dhamma kacay qaaran aan noodinay magaran saay inay noo wanaagsan yihiin ayaa iyaguna marad iska qaaday go'aankaas oo ahayn go'aan aynu wada dhameen sidii kii 2012 kii marka la Soomaaliya ma la hadlaa bergiisanayo oo nashiriyay saddex cusbi oo dad markaa jiray markaa asxaabta intana qabiil isku bedelin ayaa yiri arintaas ay ka soo taliya saddex qof baa noo saaray madaxweyne ku-xigeenkiisa ayaa markaa nashir gareynay talaano keenay taladii baan ka qayb galay laakiin musabixi kii idna la tashan ayuu tooska yiri go'aankii aanu qofkii u horeeyay soo dhaweeyana لأنه وحنا أورين جرين إنجليزكو ويصببها هذا صار يوصل حكم كمان كل شيء ده وحنا أورين جرين إنجليزكو إثيوبيا وحنا أورين جرين إنجليز وحنا أورين جرين يوروبيا وحنا أورين جرين كيس كان هو كيس أفريقيا هذا أفريقيا نجوهريو أفريقيا نجوهريو then we will follow نورت أفريقيا كشقي أنا إسبيش اللي بكون يا أفريقيا تونك وحنا إنجليزكو يدري اسمع عمر قال لي برتقال Soomaaliyeed ka soo dhameystira markii uu yiri Ethiopia wadakii weynaa Afrika ee xaruntiisu ahayd ay jiray waxaan doonaynaa inuu isweydaarsano siyaasadda dibaddu waa danta dalkaaga danteedii bay waxaan naga xidhnaa Ethiopia waan isku tidcanay jaamacad kasta oo tagtid professor baa jira isbitaalka soo jirta waxa jira Ethiopia qofkii xanuunsan Ethiopia u taga dadkeenu Ethiopia u tagay waan isku furanay marka ayna itiraafto iyaguna saa Djibouti yar inta soo beys baa jira ay beys ku ilaashato wixii maraakiibteeda iyo cuntadeeda ay yeelato oo meel qura isku haleyn risiga xaq bay u leedahay inaguna inaynu itiraaf helo xaq bay u leedahay marka wax isweydaarsi baad laakiin go'aankaas dawladdiinu kama shaqeyn oo soo saaxay Muuse inuu iska fariiseen gudaheen buu ka shaqeeyay dagaalka dhexdeena cadawgeenu meel kasii tageen meel kasayna ragii hadda waan ku kala qaybsanay waxa jira xusbiga wadani wuxuu tagay Ethiopia wuxuu yiraahdaa anaga soo baxayna saxiixina markaas wixii Muuse ka doonayseen in helinahay waayahay هذا حاجة ويجسي
ummadda waa in wax loo sheego صح waraysi isagoo kulmiya wadana ayaa dowladda waraysiga inoo dheer baan qodobo badan marka waxa weeye from that day on dagaalkaasayna horta galay ayaa inuu socda waxay noo raacaa Taiwan buu haddana inuu ixtiraafay Taiwan inuu ixtiraafay Taiwan waxa ka soo jeeda China oo fiitole imaka Kosovo waa 90 wadan baa ixtiraafay UN ta ma fadhido maxaa u fadhiisan weyday ruus baa fiito saaray inaga bal hadayna wadan ka yar tacaawudkii weynaysan maxay noo qabatay wax ma weydiisanay ilaa dhowr iyo toban wax bixin jirtay scholarship qabiil baa lagu bixin jiray NGO baynu ka dhigan labada arrimood uu Muuse qabtay administration labadaba dhibaatada maanta in haysata ee cadaawada in haysata oo inaguna aynu ka hortagi weynay ay horteen haysata oo inoo dheer caalamka ka taagan aqoon macaawadii baa la joojiyay arkay USAID-kii ayaa la joojiyay marka horta adduunka dhibaatadiisu inaga taasay noo dheer waxa kamid ah waliga oo dad badan loo ila daawanaya la ay kaga marxaati yihiin inaad ixtiraafka tan iyo maalintaas hala qaaday adkaalin weyn ka qaadatay nabadayn waxyaabo badan sidii wadanka loo ixtiraafi lahaa maanta waxa uu marayaa sidaad u aragtaa qudhaadu waad ka hadashay oo had iyo jeer matalan dowlado badan ayaa inoo soo heemay qudheena adoo talooyinka ka bixin doona sidaad u aragtaa bal hadda maanta ictiraafka iyo arrimaha la xiriira doorta ictiraafna qofna afka ku qori maayo هذا اسكو فريها إلى هذا كويس سبحانه وتعالى الدين تيرو قالوا سبها أشهد أن لا إله إلا أشهد محمد رسول كريد لقوا ما قالوا شناده تعب الله قال لأنه تعب نقوم بقى إنك تعب نقوم بقى international institution وكم قلنا لابد دولة موسى إلى تنمانتا وكم قلنا يبغى ميك سوي قليلا إمك maanta oo dambaysa bale waxa loo fasaxay qaradan kaartumayana SSC in Somali stabilization funky la siiyo wala macaamiliya xaq baan u leeyihiin mar hadii anagu markan Soomaaliya aan ka goosanay inoo wala ictiraafso loo macaamili jirin hadda iyaguna meeshii jeeyeen nabad ka keeneen deganaansho de waxa weeye xaq baa u leeyahay la siiyo adiga ku xidhan inaad taas ka dhicin oo agtaada maamul kale ka hirgelin oo stable inuu wad sheeganaysaa way Faisal Xamse markuu yimaanay aad baad uga hadashay adigu iyo arinta maxaabiista bal consequence-ga in ay keeni karto maxaa kamid ah maxaabiista bilaashan ana ku sheegaya guul darada inaga dhacday baasharanse boshacade يا تنوى قول درادي الله بعدين ودعده وهي ملاشكي الله بعدين يلا حسن الشيخ he's very smart لأنه نقول لي عيار قريني وحي أنا نيش أنا بتكلم يلا وضو أنا حكومة دول كيجيني أنا اسمه كينيا محابيس أوسو كالدينيا ما كان واحد كتصي إنه هذا يديك يسوي كتصي إنه ما يشاء الله وده إنه ودلكي وحكومي شو شيء إنه نهوان وهرد كشيء ما كان سوي لي بهندنا خشلا عيبت إنه قد علي ودريس كيس وقليه تاسو قوانين الدولة دي كسور جدا أو ور فيصل إن أي محابيست إنه كلا قيمسه وواي حتى قولوا لا اعتراف له أي واحد وير فرق كلاسكو إلى يكو جيان إما كمحابيست اللي مقاضي تبي تروح وجي حمر وحوير تاسبيالي العادي قام البوليتيكال ساينس كي وحي قال ما الخلل الحين يسون كله waxaan ku wuxuu sheeganayay inuu xukumo oo Soomaaliya oo xukumo ayuu cadaatay dawladdu way kula socotay dawladdu way kula socotay uu kula socday hada war wata dhigasa hasiideen marka ixraas qoyna waxay jiraan ku sheegaya saada way هو كوسي دليل لكن دمايا waxaan ku sheegaya ninkan iskamu iman baan ku yiraahay
iskuma haddaan iman ciidamadeena og jooga umay ogolaadeen haddii marka ay ku dhaqaaqaan nabadgelyo darro soo may dhacdeen oo nabadgelyada waddankaagii baa oo nabadadku oo marka nabadad ku haysata maxay tahay dhulkaagii baa la haystaa xuduudda sheeganaysa la haysataa xuduudaadii baa la haystaa oo maamul laga sameeyey nabad bayna ku heli kareen oo nabad wax lagu helaa waxa lagu helaa markaad strong tahay you will be respected oo baa lagu keenay haddana waxa loo socdaa in ceergaba la qabsadee ma nabad baad haysataa sidaad u aragtaa bal ciidankan la qarameeyey ku dhowda مثلا ciidamada madaniga هذا waxaan hor u sheegay hal qarameeyay muuse bixiya qaramee baan ku niri horta ciidamada waxa keenay baahi reer ismu keenay hadii ciidamada Soomaaliya joogan qurulugad oo difaacaya dhulka Soomaaliland deemay sameeysan hubka may qaataan beelo uma qaadan waxay ahayd in meeshan horta marka hore leey wala qarameynaya in barnaamijkii lagu qarameynayay madaxweynuhu intuu geeyo inuu u geeyo dadkii 20 intan qof la diro midba ra'yi qabo oo kala wada agenda ah way masiir gareeyay dadkii midba waxba dadka u sheegay dadku wuxuu qaatay in la dhisam garanayo waxay ahayd in nimanka meeshooda maalinta runta aanu sheegay meeshooda lagu qarameeyo guuta la gariyo hala hoos keeno taliyaashu aan noqdeen taliyaashii ciidanka Soomaaliland aan noqon qabiil kuwa magaalada jooga ceergaabiyo jooga horta hala galay tababarka la geliyo may kuwaas ka soo baxaan bixi baa la geeyay kuwan kale aagoodi baa la geeyay dhageysahay aan ugu dhameeyo waxaan hadaa bixi la geeyay frontiga laga soo qaado wax la geeyay bixina frontiga jooga ciidanka qaranka ayaa lagu wareejiyo oo ciidanka qaranka jooga ceergaa waayo laba guutaa joogo min 70 baa weeyay guutadii kasta walaal wixii hargeysa joogo laga qaaday war guutooyinka lagu sheegaya ma guutooyinkii caadiga waa 70 qof kamal doystii baa la qaaday hadda waxa ku sheekaysataan baragti baan ku sheegay waxaan ku ciidanka Soomaaliland boqoob 20 kun Muuse bixiyo waan ku wareejiyay 6 kun ma gaadhaan oo wada caagle maanta miyaa guusha ugu weyn laga gaarno inaan gabigooda laga qaadayo tirakoobka may way fiicanta in la tirakoobka sidaad u aragtaa qortooda ana kule caaglayaasha joojiya ana soo aragay meesha guulahayd wax guulayda guul waxa la yiraahdaa marka guul keentide ciidamadeedii maanta register gareynaya de guul ma waa shaqo ku taala it's your job ay ku leedahay appreciation may waa shaqo isku bogaadeen may waa shaqo ku taale la shukr cali waajib baa ciidamadaadii oo lagu dhigta garee oo ogow inta shaqaynaysa inta dhimata waa it's your job وانت كوبي مدن عقال الله محيص aniga imaka uu ku dhaqaaqay markuu dhameeyo ilaa ciidamada intaasay noqotay wana register gareeyay markaas aan oranayna guul weey wixii uu under laakiin beelka ila si qodadu ereyada soconaya waxa qof waxa tashay war waxaan ku yiri maya bilow way fiicantan ku yiri laakiin marka ay dhamaato imaka inta og wax ka dhacay ma taqaan qodada talooyinkaaga waa loo baahan yahay oo waxa weligaaba adigu si kasta laakiin talooyinka dad badan oo la dhageysanaya wixii jira waxaan ku yiraahday maanta hawsh inoo taala ciidamada la iskrin gareynaya way ka weynta this very minor hawsh inoo taala wala inagu wareegaysan yahay maanta hawsh inoo taala wala inagu wareegaysan yahay talana ma haysano شعبي أنا كم هذا سنة تلا قررنا أن المنطقة إلى مدحوينه برنامج كاسو وضعي عن وذاك الجود دفاعية وأرماد دي بدل تاعي يعني هوسك قال ما هينو إلا يمانة إن يمتون كي إنه بعفر السنة إنه ندي ذاك إنه ولا صنعوني أو إنه كذا واغني تيم من سكول صنعونه ما حين نروح ماذا ما حين نو نكسر مانين ما أنا كسر حين سكول جلنا ولا كورين ما شنطة سنة مين وليني واربع محوا دستور كينن وحنا كنا ندبوا إيجون ريفورم كريمة ولي ما نقول لكن قضية بخيرنا برلمان كله كلهم دولين إلى وين اللي كنا ورت وحنا الدستور كان هاجسيتي دستور كان هاجسيتي بل لما حياة كوت على صدق سنة هفرت جورتو بحياة كوت على جورتو هاي استحشوا بحياة كوت على جورتو صدق شراء قالوا
waxay ugu tahay guurta dad waa inaha galeen waxay ugu tala nin aan xusbi gelin on doorsho gelin ha yeesho dhegeyso wariya ha yeesho xildhibaano ha yeesho waxay ugu tala guddoon baa jiray guddoomiye baarlamaan baa jiray shir guddoon xag ugu tala Faysal baaba la leeyahay aan dadka qaar aragtiyaha war waxa iska dhaafayso war waxa Faysal waxa la leeyahay war dhayso waxa ka hor dalka in la hagaajiyo haddaan dal hagaajin ma guurta noqon jiraysa hay'adda aragtida ka laga qabo dadka waxa uu sheegay illa war anu dadkani waxa waxay ku jirta guud ba ku jirta dantaada Soomaali ku hagaajin gabarta ma Soomaali horta si loo hagaajin lahaa iyo mushkilada in hor yaala sheegayso ku hagaajin mushkilada in hor yaala hadda horta aanu xalino maxaynu ku xalinaynaa bal maanta Ilaahay baan ku dhaariyay adiga ma waxbaad xasuuqday adoo lagu xasuuqay yaa kii ku xasuuqay waa xasuuqday Soomaali si qurux badan tahay laas caro ya quruxa keenay inaga dhisnay $2 milyan ku dhacay isbitaalka ku baxay DNA-da taskii baa yaala ma yaala baaleeyna isbitaalkooda adiga lagu xasuuqay baa lagu leeyahay maanta waxbaad xasuuqay way go'aan kalimka dawladda xukuumadda wada hadalladii Soomaaliya ceebtu weeda maanta dhacday go'aankaas wada hadalay noo socdaynaga Soomaaliya imaka adduunkiina itiraafi shaki baa geliseen لأنه أننا دايلوج دبلوماسي دايلوج إيو سومالي دقال بينو كوجر نابي حقوق إنه قال سعودي بل واحد إيش يكتب بل واحد إيش يكتب بل واحد إيش يكتب توسط ألف قيمة كذا يكتب واتي وحلوه كذا كعي وهرتو توسط وحبة كدم بي سو تن الأسعار السومالي كل سو دوشي إيه هو تسوع عوصي سو كان فقي كل الدقالة يقول له وعونية خد هذا ما كان سومالي أفرزه بحياتي 2000 maxaynu ka macaashnay Soomaaliya lagu ixtiraam bay waxa lagu joojiyay markii ay qolooyin laga tirsan ay meesha keeneen aqoonay iyo qolooyin maxad ka macaashay waxa laga macaashay Soomaaliya waa lagu ixtiraafay ku beelgaar bee adduunka waxay yiraahdaan waan isku taginayaan ixtiraaf dawladihiina ixtiraafay maalinta dib u wada noqdeen ma ku riyaal joogay labiyo 2000 kii khasaarihi in gaaray ayaan hadana sii wadnay waliba ya go'aanka maanta waxa ka fiican too ilaha Soomaaliya declaration of war been ugu qaadeen waan annaguna waan u diyaar baan u nahay laakiin waan wada hadi jirno hadalaa noo socdayo shacabka reer Soomaaliya ma ogin hadalaa noo socnay aniga wax nagu doonay Djibouti oo dabaysay oo lagu kala kacay oo dawladii u tagtay in ay tagtay MAU soo saxday oo halkaan ku dhamaaday wada hadalay laakiin ma in marka wada hadal Sacuudeen oo hadda dawladda haddaanu joojinay waa anada sad baa kale cadaan siyaasadeed baa tahay oo waliba tahay waxa doonaysa ruucageen waxa wixii jira diinisa waxa doonaysa inaan guulwadeeyo ma guulwadeey mise talooyin baa laga rabaa waxa weeyaan talooyinkan national tala qaran baad waligaaba oran jirtay tala hadda ku talada laga rabaa maanta dhaleecaynun kadab dhaleecaynun la soo taagay hadda ma dhaleecay baan sameeyay horta ikaadi horta imaka aan wajani kuma wajalin dhaleecan ma jirto waxaan ku yiri wixii qaldan baan ku sheegay sax wixii qaldan baan ku yiri maanta in la yiraahdo wada hadalkii waan joojinay oo dadkeena ictiraafiyay arkaan inay qalad ku socdeen oo dad wada hadlaya oo wada hadal u socdaan ay doonayeen inay iyagu kala jaraan taas waa ceeb been ugu tahay waxa la ogayn warna ictiraafkana Soomaaliya laba dal baan kala nahay dalkeega waanu haysanaa MAU-gana waanu saxinay baahed laakiin wad diplomatic baa noo socday iyo wada hadalada noo socday dad badan oo reer Soomaaliya way yaabsay horta waxa weeye waxaan doonaynaa inuu shar wada tashi qaran madaxweyne ku dhawaaqo shir wada tashi qaran ma kuwan Soomaaliya shirka madashay leeyihiin oo national oo dowladda waxay isku yeelanaa madaxweynuhu waxa uu yeelay shir wada tashi qaran adu madaxweynaha intii matalan ma saragtaamo wada tashi iyo madaxweynaha lawado madaxweynaha iyo anagu idinku waxaad ahaydeen
أنا بالي هاي سولي إنك هذا ذاك كان ديسو أنا بالي هاي سولي وحمي ما أنا هاي ستاي تلا وحكوري كونتاكت من ليدي هنا وما على كل حال ما كان مقنين ما كان مقنين ما كان مقنين ويا فيصل يمكن dad badan oo ina dhageysanaya markay ku arkaan adiga inkastoo maanta inta wax wareysanaya aan arko adigoo sharaaradaadu kacsan tahay in badan ma ku arkay laakiin talooyin fara badan waxa lagu yaqaanay qof matalan si imika Maxamed Xubeen laakiin waxa had iyo jeer waxa laga filayaa nin national Somaliland difaaca u dhinta ilaa kiyo siyaasadda markuu soo galay ku bilaabay wada heshiisiintii oo halka ilaa Abubakar iskaga daba qaadayay intii dambe markasta oo xaaladdu ay adkaato compromise-ka maanta waxaan joognaa meel wanaagsan u dheeda oo adiguna adintaas imika khibradaadii yeelatay oo tahay marka bal talooyin wadalo objective ah oo bal maxaad talooyinaha maanta lagaasha amba xagga dawladda amba xagga dadweynaha amba international community-ga sidii ad ugu horseedi lahayd matalan ictiraafkeena maanta oo aad ka mid tahay bilariska lagu tilmaamay inay matalan u taagan yihiin bal hadda kaalinta ictiraaf raadinta kale sidee baad u aragtaa adoo aragtidaada inaynu kaga bilowno ixtiraam aan ku sheegaya aniga maanta waxay ka qaalisinaya meeshan maanta taaganahay weligeed maalin inaga xunti ma jirto iyo si dadkeenu aan u dareensaneen oo adigana xitaa u dareensaneen ayaa iga kaaleysanaya waayo de waxa weeye bal waxaad ii sheegtaa Soomaaliya inala dagaalameysa China inala dagaalamaya ina gelayna la dagaalamaya hadee gaar baa kula dagaalameysa maxaad haysaa meel lama ka muuqana bal waxaad ii sheegtaa meel uga muuqanayna ii sheeg de waxa laga muuqan de waxa isku muuqan ee horta waxa sheegtay meel de waxa loo muuqan waxa weeye waxa loo baahan yahay in dadkeen la mideeyo hadday dadkeeni la mideeyo waxa loo baahan yahay in la shir isku nimaado waxaan haystaa maxaynu ka yeelnaa dadku haddaan egnabi maxamed cali salaam ayaa leeyahay dadka la tasho maanta ma xusbiyaal ma jiraan xusbigii kuwadani kulmiye ayaa la isku wada tagay kulmiye ana meesha waa laga saaray kulmiye horena waa ka wada baxeen isku tagay markii u dambeysay kulmiye odani maanta asxaabina ma jirto talam aynu haysano midaysana ma jirto wal aragto suldaanka wax doon ku hadlaya qaar baa oo reeri uu gacan raadiya midnimo Soomaaliyeed oo dhaxdeeniya ilaahay baan ku dhaariyay inagu haddaan ummaddu midaysnayna oo ni common ground kale haba uu sabaabiyay Soomaalinimadii ehelnimadu uu baabiyay isla xijaadii Soomaaliya uu baabiyay loo nacay marka waxa loo baahan yahay inaynu imaka bashaashna ka baxnaan ilaaho waa waqti baynu ku jirnaa waa waqtigii eedkii maxaynu yeelaa maxaa inoo tala madaxweyne gogosha dhiga asxaabtiisa kulmiye kaliya waa kulmiyiisa u yeelaa dadka kale ee fitranka siyaasiyiinta ahna u yeelaa eliitka u yeelaa madaxweynuhu ma tala yeelo waad aragtay inaad hor dhigaysaa hordhina uu tale waxaan ku yidhi wixii loo baahan yahay kuu sheegaya maya dee usawka madaxweynayaasha u yeedho mararka qaarkood war madaxweynayaasha yeedhe dadku madaxweynayaasha hore soo rigaysayeen maaha waxa weeyaan aduu rigu ishayay inuu albaab ku garaaciyay ayuu isleeyahay wuxuu kuu sheegi doona talo fiican meesha waa la sharfaayo waxaa loogu yeeraa meeshooti ma ogtahay laakiin ida ha kordhiyo baan kule ha kordhiyo way walaacsan tahay aad iyo aad ha kordhiyaan ku leeyahay ayuu mahadsan yahay Faysal Cali Waraabe oo kamida matalan siyaasiyiinteena rogcadaadiga oo had iyo jeer sharaaradiisu ay tahay mid ku xiran oo dhinaca in waxa la dalka hagaajin loo dagaalami jirtay in soo saan wali way habeen hore ka qaylisiyay xalayto markan tusay qisada runta ay jirta waayahay erayga ku dhex galiyo Faysal wuxuu keenay
ereygan aad tiri wuxuu keenay baraha bulshada gaar ahaan iyaka inuu shicibkooda ra'yi caamka marka la eego public opinionka waxa weeye attitude-koodii inuu mar qura samada geeyey xataa adiga ninka wasiirka arrimaha gudahoodu wax la dibadoodu inkastoo aan feerba laga hayn oo aad si kulul adiga uu kugu dhaleeceeyey aragtida qudheeda sideed u aragtaa waata u jawaay anigu waxay Soomaaliya ka jiraan sheegeen miyaan taageeray xataa dad badan oo Soomaaliya naga daawanaya maxaad u sheegaysaa oo aragtida si khaldan loogu tarjumo waxaan Soomaaliya waxba sheegay waxaan kuu sheegayaa Soomaaliya sheegay sida waa la arkay anigu waxaan sheegay wixii ka jiray dalka muqdisho iyo al-shabaab kala marayaan ayaan sheegay laakiin ma taageerin warkii jiru ma sheegay adduunka qoriyeen oo practical su'aadan yaabal saddex gobol ma haysan jirin waa kuna iyaga ku soo kuleeyay hubka qabsadeen iyo ciidanka qabsadeen laba sano ku dagaalamay kala imaka waa kuna waxa ku dhufanaya ciyaalaha biyaha haysta marka anigu wixii jiraan sheegay ninkan koofiyada qaatan aqaano isaga imaka waxaan ku tusi doonaa in goodeen la taswiiran in goodeen isagoo la taswiiran baan ku tusi doonaa isaga adduunku wuxuu yaqaanaa wala secret confidential inuu member yahay al-shabaab marka qofka xanuujisiid uu iska qaylin doonaa reality-ga dadku og yahay inankiisa galay Suuriya ku dhintay wati BBC aan ka sheegay waxaas wax macna la ma aanu Faisal baan meeyay Said Ali meeyay Faisal Ali wara marka kuwa aqliha weydiinay kuwaasi waxaan ku leeyahay haddii aqli leeyihiin 30 sano ayay maamul ka sameeyeen ka waayeen isku xisaab maamulka u sameeysanay 30 sano ayay maamul sameeyeen ka waayeen magaalo u talay wadama ma jirto magaalo u talay dawlad ba ka dhax sameeyay xalana la ilaalinaa marka waxa la geliyay madaxweynahoodu kuri waxa baaray Uganda ba baara inaga meesha ka soo bixi weynay dariskeenii waajibay keenay dawlad maaha imkan adduunku arkay inay dawlad ahayn wala ciidamada Afrika waa lacagtii ma haystaan way ka baxayaan Mareykanku ku jiray marka ka jiraya dayalka baa u socda international community ee shabaab dayalka baa u socda marka hada wixii aanu jiro baan sheegay qayladooda dadna colheena waa ku caayay jamar hor col baan ahayn asmaan ma leh marka eeda Soomaaliya iyo cadowga Soomaaliya kaliya baa qaaday ma cid kale reer Soomaaliya la hadashaa jirta ma cid kale Soomaaliya jirta oo warata shacbiga oo tira war maanta arintu halkaas ay maraysaa marka dalkan waa tan ku sheegay maalintu qabsaday ku wadani waxa ay madaxweynaha systemkeena waa madaxweyne dawladii waxa ma jirto waa madaxweynaha siyaasiyiinta lagu socda hada wad aragtay ma Trump wasiir kastaba wuxuu leeyahay min mashruuca siyaasadda Trump waa aynka waxaan la fishinay ilaa xusbiga waxa soo saaray magaalada saayay wasiiro waa systemka parliamentarianka idagayso madaxweynuhu inuu isagu wareegayso madaxweynuhu waxa inuu ilaa haddaan nahay Soomaaliland horena ulama heli jiray inuu kan dib ula hadli mayno Soomaaliya dagaalka ay qaataan la qaadanay inay hadbay al waraabe oo xilli waqti badan la siiyay aan aad uga mahadnaqayno inuu barnaamijkeena yahay qofkii ugu horeeyay Soomaaliland waxa talaa loo baalaaleeyay aniguna waliba gaar ahaan hadda Faisal ahay aan aad uga mahadnaqayo oo barnaamijka halcadayga la yiraahdo oo imika taliya markii wadanka la soo galay inuu yahay kii ugu horeeyay oo hana qaaday anagoo rajaynayna barnaamijkani maadaama uu Faisal maanta TV-ga qaranka nooga bilaabay in rag badan oo kale la sida Faisal oo maanta u soo bareeray oo afkaartiisa oo dawga soo qaaday inuu oo dawga soo qaado TV-ga qarankana aan ku hambalyeynayno sida had iyo jeer maanta isbedelka uu sameeyay Faisal waa mahadsantahay